waxaan joognaa maanta jiida hore ee Meygaagliye Shangeed eeriyada Gocondhaale ee huwantii lagu macasalaameeyay horta marka hore Cabdi Madoobe iyo inta uu la halmaalo waxaan leeyahay baliga kan galgal yaa daraadiyo shalayba soo weerartay awowgaagii afraad ayaa wada cad laga maray kii saddexaadna ma hungurayn kii labaadna ma hungurayn adigu waxa laga yaabaa inaadan wax isweydiin meesha saddex awow oo aad ka soo jeedaa hungurayn waa inaad adigu maanta ku hunguraysaa waaba ku doqoniino Cabdi Madoobe saga intaasaan leeyahay iyo inta la halmaasha waayo huwan waligay waa sayni saddex gobol baan ka haynaa huwan sanaag hal tuula kaga hadhay ka degan fiqi fuliye miyay gobolka soo la yiraahdana laas caanood ayaa huwan ka sheegataa gobolka cayn ayagu ula baxeen ee caynaba ah waxa weeye 3 kiiloomitir bahadeer buuhood la jirta caynabana halkaasan ka marnaa degmada buuhoodle iyo 4 magaalo ee galbeedka ka xiga ayaa daarood ka haya saddexda gobolba awowgii saddexaad iyo awowgeygii afraad baa mulkiyay waa saddex gobol qaar baa faano oo meelaha ka faantama ama qof yar reer miyi intay dilaan ama qof ari la jooga faantama bal ninka saddex gobol haya maanta ee aan haddana faanayn ayaa garanaysaa lala soo qabanaya xabad aan meel la gaarsiinin horta daarood sidaas aan saddexda gobol ahna waa sanaag waa sool waxa weeyaan waa cayn saddexda gobol baan daarood ka haynaa oo degi jireen kuwii degi jiray hore ee dhalay Allah u naxariisto kuwan hadeena waxaan leenahay waryaanan ka bacdi idin ducaynay idinkuna maca salaama idin leenahay meel wax ka qaadi karaysaan maaha inta markaan ka soo gudbo waxaan leeyahay Somaliland halka aan maanta joogo oo jiidii quruluguda ayaa Somaliland maanta ay u baahan tahay halkan Somaliland inay isugu timaado isaga maanta qorrax baa u soo baxday naacaw baana u soo dhacday khilaafaad dhexdooda baa la galiyay garxajis iyo golayaal baa loo kala sameeyay gudiyaal baa loo kala sameeyay iyagii baa la isiri isdaawada isaaqow hadaba maanta isdaawan meesida kaalay halkan maanta halkana guushaadii ka soo uraysa waxaan leeyahay gudiga garxajis gudiga maxay dhahdaa habar shaclo gudiga awal gudida arab gudida gudabiirsay gudida ayuub dhammaan gudiyada samaysan ee isaaq leeyahay waa inay halkan si degdeg u yimaadaan waayo dantooda ku jirta maanta dagaalkani waa dagaalka la yiraahdo walaalay dagaalkani walaaleeyo weeyaan anigu sidaan qabo dagaalkani waa walaalay isaaq buu walaaleynaya waxaan leenahay gacantaana nimankaynu iskaga qabanayna gacanta kalena waynu ku footinayna foodkuna waa dhacaya 12 maalmood oo qura inaga xigay isaaq awoodiisa hadii ilaahay tusayo ruush buu iska celin karaa oo Mareykan buu iska celin karaa markaas ay inama yar huwanihi meelahan marba isu keen soo raacayaan wacni waa la yaab awooyaashii in dhalay hadii la soo nooleeyo de way yaabayaan waayo kuwa kan iyaga way ka carari jireen laakiin waxaad moodaa hadeer isaaq in mushkiladda dhexdooda iyo siyaasadda iyo caanteynka ay ku mashquuleen taasina ay keentay iban la hungureeyo warbaligana hadeer jooga la hungureynaya awowgeygii afraad baa xoreystay war maxay yiraahdeen Gocondhaale amika la soo hungureynayo ay hiwantii joogtaaba maxay yiraahdeen sanaag baabay gargaraacayaan oo ceerigaabay gargaraacayaan nimankii la ilaaha illa allah war kuwa kan awowayaashin baa markii hore wada ku riday kuweena loo soo hungurooday ee amika isaaq waxaan leeyahay qorrax baa idin soo baxday ma ka faa'iideysanaysan war garxajiso ma ka faa'iideysanaysaa war awalow ma ka faa'iideysanaysaa war ayuubow ma ka faa'iideysanaysaa war arabow ma ka faa'iideysanaysaa war samaroonay ma ka faa'iideysanaysaa qorraxdan soo baxday wallaahi ilaahay baa loogu dhaartaaye haddii inta aan magacaabayba ay degdeg u soo jawaabto oo timaada halkan doorashaduna waa dhacaysaa kuwanina dib dambe inaanay inoo soo hadal qaadin baynu wada ku ridayna waayo dagaalka kan wuxuu dabada ku hayaa xamar wuxuu dabada ku hayaa nin aan talin jirin wuxuu dabada ku hayaa nin isjiri maanta meel degan yihiin wuxuu dabada ku hayaa dagaalkani dad damcay inay dadkani caynkoodii ka yara diga rogteen oo waxba leeyna ka yar garan waayay dabadna hunguri baa yimi
xasan sheekh waligii isaga iyo reerkiisu toona ma talina waa loo talin jiray kaasaa inagu soo shuqaynaya dhulbahante iyo harti iyo daarood oo la doorashadooda hal carqaladeeyo xoogay go'aan aan idin nimankana doorashada ka carqaladeeya tani way dhacaysaa garxajiso way dhacaysaa awalow arabow ayuubow doorashadina way dhacaysaa kuwana meel baynu iskaga tiirayna waa ruush iyo mareykantoona xirnama qaad karaysaa qadu israaco waxa idin leeyahay maanta inuu aqligu shaqeeyaaba la doonaya aqligu inuu shaqeeyo ayaa isaaqo maanta la doonaya haddii ay calooshu shaqeyso war calooshu way ducaysaa ma shaqeyso ma talisa ay calooshu laakiin aqliga ayaa taliya waxaad moodaa inay maanta calooshu inoo talisay warday calooshu way ducaysaa xagee lagu arkay calool talisa aqligeena inuu ka shaqaysiinayna calooshu way ducaysaa ma talinayso maanta isaaq taasaan leeyahay waxa la yiri gudoon dhacayna waa fulay ninkii gaar u faashaday gurba ayna waa cadow ninkii raarta sii guray hadda waa gurba ayo waa gubtay raartu sii guray waxba ka sitay waaba gubtay gudoon dhacayna waa fulay ninkii gaar u faashaday gurba ayna waa cadow ninkii raarta sii guray gobannimana waxa dilay ninkii gowska dhaafsaday waryaada waa nimanka nin waliba saadiisu soo qaadanaya nin waliba faraskiisu soo kaxaysanaya nin waliba seeftiisu soo qaadan jiray dabeedna cadowga meel lagu tiirin jiray war maanta waa hubka nuclearka isaaqibsan karo ayaa in yaro huwanoo midharihi inoo soo hanjabayaan in yaro ari jooga mid waalan mid aan waxba qabin amka dagaalkan hadeer wuxuu ka kacay nin xanuunsanaya oo ilaahay ilaalinta abuurtay oo malaa'iktii garbihiisa saarneed ka rogay ayay dileen uqubadiisa iyo ciqaabkiisana shalay bay arkeen ciqaabkiisa waxa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam badar markuu nimanka ku laayay 70ka ee isdul taagay wuxuu way ina maqlayaan waana ciqaabayhiin buu inoona jawaabi karimayaan kuwa halkan shalay lagu xasuuqay iyo daraato way ina maqlayaan hadalkaygana maqlayaan laakiin ma jawaabi karayaan kuwa kale ee nool ee soo socda amka dhalaamacna lagu leeyahay qaar tiknika ah xagga iyo galguduudka iyo mooji la yarkasay waxay yihiin marixaan oo xagga xabad kaga socoto toodii oo uu danba wax lagu leeyahay dhalaamacna ka qadeynayaan maanta waxa idin leeyahay soo socda kuwa mudug ka imanaya iyo kuwa gaalka ay ka imanaya iyo kuwa boosas ka imanaya kaalaya anagu xawaalihii baanu haynaa waayo kuwii awoowayaashiin ba hadeer aan dul taaganay kuwii awoowayaashiin ayaan caynaba maxay jirtaa hadeer waxa weeye waxay jirtaa 110 kilomitir miya mise 90 mayl bay jirtaa caynabi yaa laga furay marooji ina ka yiraahdo Cabdimadoobe amka halka soo tagay miyuu waalayay miyuu khaldayay miyuu dawaqsanyay waxa weeyaan huwan sidaasa inoo ballana halkan ka tagi mayno waanu joogaynaa waanaanu ka dagaalgalaynaa waana xasilinayna xalaal baanu ka dhigaynaa hadii la ka dhigo waxa soo haray afarta magaalo buu hodla ku hareeraysan iyo laascaanood oo hadeer looga yimi waxa weeyaan dagaalkan waa dagaal xaq waxay leeyihiin maanta warshada meesha lagu dagaalamay ma laascaanood bay ahayd ma buu hod leeyahay ma gaalka cayahayd ma garow way ahayd tumay ahayd halkan lagu dagaalamaya waa ciideedii weeyaan waana lagu janno tagaya ninka soo halkan ku dhintaana waa shahiid ninka soo halkan yimaado oo huwana oo halkan yimaadana waa ahlu naar taa anaga nidi waa saxiix waayo hadeer halkan geedkan aan harsanaya balligan aan harsanaya hadeerto maxay nahay shingeed ay u muuqato de waxa raayga daaqa dumarkaygina waa kuwa ninka soo doonta markaa miyaan lagu janno galeyn waxaan ku soo gabagabeynaya gobonnimo waxa dilay ninkii gowska dhaafsaday war maxaa inagu soo noqonaysa isaaqow xisbi hebel saddexda xisbi qaran way tartamayaan ururaduna way tartamayaan dagaalkanina wuu soconaya ururada nimanka ka gudoomiyayaasha toddobada urur iyo saddexda xisbi qaran intiinaba halka la idinka baahan yahay doorashadiina waa qabanayna waana dhacaysa waxaan sa idin leenahay war yaa idinka baylihin